السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waxaa la yidhahaa Naciima Salaad Madiina Xuseen gabadha la dilay Toto Salaad walaashay waaye dad badana markino oo YouTube iyo Facebook ka hadlayaan waxaan dhahi lahaa waxa idinka hubanin iska hadlina dambi ay idin soo raaci karaa markino ilaahay laga baqo yaa waxyaalo adiga hubanin asoo galinin adi xataa walaashaada adal qof dili lahaa oo maanta inta fadhiyo sidii oo dad u shactireynayo oo kale oo dad ma arkino followers u raadinaya oo kale gurigan ka dhigto oo inta fadhiyo oo walaalaha aan ka hadli lahaa hilibkaaga dhaqaaqi lahaa waxaan maantaan idinu soo jawaabnayna oo in kale aan idinu soo jawaabina waxa tahay we are busy family-geena anaka oo dhan oo walaasheena oo quruxda badan oo xidiga gurigeena tahay oo indhaheena iyo wadnaheena noo tahay wayne maadaama sa time-ka idinu qaadan wayne on inaan inta fadhiisano aan iska dadalan laakiin maanta hadaa idinka qof ashahaadanaysiin hadaa tihiin waxaan kali aan idinka codsanayna waxaa waaye inaa oo nala raadisin oo ninkaaseeto oo meelahaas wareegayo oo weli oo facebookiis isticmaalayo telefoonkiis isticmaalayo walaasheydii gaarigeeda oo gadatay oo dhididkeeda ku gadatay oo la wareegayo oo wadna lahayn oo maskaxad lahayn oo ilaahay oo garanaynin oo weli telefoonkeeda intuu annaka oo waxyaalahan dhehno naga fiirsado sidii oo markano movie oo daawanayo kale oo na daawanayo kaas ina oo nala qabatin oo nala faafisin ya adduunka meeshii idinka joogtiin oo dhan noo faafisin aan jeclaan lahayn walaasheena maanta annaka kelima naga dhimanin ummadda dhan ka dhimatay ummadda Soomaali oo dhan ka dhimatay adduunka dhan ka dhimatay walaashaydii qof fiican ahayd qof dad jecel ahayd qof diin jecel ahayd qof oo miskiin iyo kabiir iyo qof weyn iyo yar kala ilaalsanaynin ahayd walaashaydii maanta adaa qof oo wax ka weydiisanayso ahayd oo ku diideynin wallahi adaa wax ka weydiisato oo gacantaada oo eber ma ku celinayso walaashay qof saas oo kale ahayd laakiin waxaan ka codsanayaa walaalaheed oo meeshaas oo inta fadhiyoon oo been sheegayo oo dhahayo gabadha waa la jarjaray gabadha habada lagu dhuftay mindiya lagu dhuftay oo dhahayo ilaahay qafuurur rahiim ku jeedo oo qofka dhahayo walaasheeda yar aan la hadalnay walaasheeda oo na soo wacda information na siisay ya ana family-ga ugu yar qofka family-ga oo inta joogo ugu yar aniga waay ya anigana qofkan waay ma jiro walina xadinta walaasheydii aan ka naxe wali markino aan ku jira I think inahaygi waa ka dareensantihiin ya soo qofaan soo wacnay ma jiro qofaan la xiriirno oo information siinay ma jiro anaka bateena u ogeen information sidii yahay ya soo beenta alla joojiyo hadda idinka ilaahay ka baqaysin nala raadiya ninkaneeto nala soo qabta dadka oo maanta qarinayo oo cuntada siinayo oo biyo siinayo oo jiifka xariirta isaga u jiifinayna dadkaas waxaan u dhahay allaha idinka abuurtay allaha idin abuurtay oo sabca samaawaad joogo ya allaga baqo ninkaas noo soo saara Abdicasiis Maxamed Keero konton jir u jira 50 years old ya walaashay oo qaali oo dilay oo ilmaheeda u korisay ya ilmahiisa u korisay Leila oo jirto 13 iyo Bashiir u korisay diinta bartay dhar u gaday dahab u xirtay ya kastuma u xirtay timaha u jilaacisay ya ilmaheeda oo kale ka dhigtay oo hoos gashatay oo xambaartay oo cunto siisay oo jiif markan xariira u dhigtay oo maanta gacantiisa ku dilay
xishmadiisoo dhan intaas le waay adiga oo maanta qarinayso cunto siinaysona taasa kuu dambaysaa wallaahi walaalaa kula dhashay gabaraa kula dhalatay yaa hooyaa ku dhashay yaa qofka saan loo galayna waa gabar Soomaali yaa gabar Soomaali hadda walaashay oo hore noo dhalin wallaahi ilmaheena oo dhan annaka dhalnay dhib la'aan u dhashay oo sidii iyada xanaaniso wallaahi annaka oo dhalnay ma xanaanino yaa ilaahay ka baqa ilaahay iyo rasuulka ka baqa yaa noo soo qabta ilaa Afrika noo faafiya Abdicaziz Maxamed Keero nala raadiya dadka caawinaya nala raadiya yaa please waan idin barina iyo beentana naga daaya please xanuunka iyo beerkana xanuunaya yaa aragtideen oo walaasheena oo aragne oo dhimatay oo siriirta isaga ku jiifiye oo ka tagay iyada meed ah yaa taasa naxdintaas hadda ka soo noqon wayna anaka please wax oo kali idinka nagu caawin kartiin waxa waaye duco yaa iyo fiidiyaasheeda oo orooska ku ciyaarayso iyo waxyaalahaas oo idinka soo gelinayseen ilaahay aan idinu barina please ka dhaafa don't share her video please do not share her video stop lying fear Allah subhanahu wa ta'ala we are all crying and mourning we're not even done yet we didn't even find her killer somebody is hiding somebody is feeding him yeah please and please fear God if you guys want to help the family and pass the news around please say let's find Abdicaziz justice for Toto justice for Muna Kuri justice for Toto Salat please justice for my beautiful sister